Dayax dhiigi ah oo baqdin badan ayaa ku dhow inuu soo baxo. Waa kan sida loo arko. Marka dayaxu soo baxo habeenkii Khamiista, ha argagixin. Ma aha omen ee waa uun madoobaad. Dhulku waxa uu hadkiisa ku shubi doonaa dayaxa oo dhan, isaga oo oogiisa u rogi doona casaan sida meeraheena, dayaxyada iyo qorraxdeenu ay isku toosan yihiin. Taasi waa sababta wadarta dayax madoobaadyada mararka qaarkood loogu yeero dayaxa dhiigga. Tani waxay noqonaysaa wadarta dayax madoobaad ee ugu horeysay muddo ku dhow 2 sano iyo badh. Midabka guduudan wuxuu ka yimaadaa iftiinka dhammaan qorax soo baxyada iyo qorax dhaca ka dhacaya dunida oo dhan. Taasi waa sababta oo ah, inkastoo dhulku hadkiisa saarayo dayaxa, haddana qoraxdu waxay sii dhex maraysaa jawiga dhulka ee ku yaal idhifka hadkaas. Kuwaasi waa dhammaan gobollada ay maalintu u guurto habeen iyo cagsigeeda. Jawigu wuxuu iftiinka qoraxda u leexiyaa dhinaca dayaxa. Iftiinka buluuga ah wuxuu ku kala firdhiyaa jawiga, waana sababta cirku buluug u yahay. Kaliya qaybta cas ee iftiinka ayaa gooya si ay u gaarto dusha sare ee dayaxa. Waxay u eg tahay in dhammaan qorax soo baxyada iyo qorax dhaca dunidu lagu saadaaliyo dayaxa. NASA ayaa ku qortay boggeeda internetka. Dayax madoobaad. Isku habaynta dayaxa, dhulka iyo qoraxda inta lagu jiro dayax madoobaadka aan la qiyaasin. Istuudiyaha muuqaalka sayniska ee NASA. Goorta iyo sida loo arko dayaxa dhiigga. Iyada oo ku xidhan wakhtiga aad ku jirto, dayax madoobaadku waxa uu dhacayaa fiidka Mart 13-keeda ama subaxda Mart 14-keeda aad u horeysa. Hooska dhulku waxa uu bilaabi doonaa inuu dul maro dayaxa, isaga oo abuuraya dayax madoobaad qayb ah, saacada 1:09 subaxnimo. Indhaha qaawan, sida laga soo xigtay NASA, waxay u eg tahay in qaniinyo laga soo saarayo saxanka dayaxa. Qaybaha dayaxa ee madoobaadku waxa ay ahaan doonaan mugdi ilaa 2:06 subaxnimo marka dayax madoobaadku noqdo wadar. Hooska dhulku wuxuu si buuxda u liqi doonaa dayaxa oo ku tuuri doona casaan. Isticmaal muraayadaha indhaha ama teleskobeka si aad u aragto qorax madoobaadka si cad oo aad ula fiirsato daloolada dayaxa ee guduudan ee gaaban. Sawir qaadista, NASA waxa ay ku talinaysaa in aad taleefankaga saarto 3 geesood oo ay kamarada dejiso si ay u qaadato muuqaal dheer oo ugu yaraan dhowr ilbiriqsi ah. Wadartu waxay socon doontaa wax yar saacad ka badan, ilaa 3:01 subaxnimo marka hadku dhulku sii socdo, taasoo abuuraysa dhowr saacadood oo dheeraad ah oo qayb madoobaad ah. Dayaxu waxa uu si buuxda ku soo laaban doonaa 6 subaxnimo. Haddii aad seegto, ha werwerin sababtoo ah tani waa 3 ugu horeeya. Waxaa jiri doona dayax madoobaad kale oo wadar ah bisha Sebtembar, kadibna mid kale ayaa dhici doona